horeysaa dawlad ahaan nimanka dibadda ka yimaada shakhsiyadii iyo karaamadii iyo diintii iyo culture-kii waxaa digada ka dhigaya hunguridoon iminta qof baa daawaday like saar kan yeelka warsiyaasiyiintu wayna ka horeysaa dawlad ahaan nimanka dibadda ka yimaada way xidhaan ma la xidhi karaa waxaa cad arad ahaan waxaa muuqata inay naga tafweyn tahay taa social media saxaafadda ama wariyaasheena oo maxay tahay badankoodu marka maaragtay dalku maxay tahay xaalad ku jiro oo aan moodinayna qarannimadii maxay tahay u dhaadhacsanayn waxaa ina soo galay oo qofka fikirkiisii luminaya lacag iyo ganacsi qofku hadalki ka wasaarad ahaan ma jira wax idin dejisan oo qorshayaalo oo wax laga qabanayo الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد النبي الأمي عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسيرك صلوان على كوريو يا وسارة تيسا وعنهم بلينا وحن كسور دويننا كده كلها تشوف تدا وحلي فصحة حلية فصحية أنتوا كلوا فصح كوي مقين هاي حوارين سمايصة أرنت ستوريا سألاش لقيت waxaan wasiirka ugu soo dhaweynaynaa warbixin inaan naga siiso sanadkii u dambeeyay shaqadii warfaafinta ku soo dhawo wasiir aad baad ugu mahadsantihiin qoladina guddiga joogtada golaha guurtida noo yeedhay idinkoo fulinaya qodobada ka mid ah dastuurka qaranka oo xaq aad u leedihiin inaad ugu yeedhataan mas-uuliyiinta xukuumadda inaad soraysi ka yeelataan shaqooyinka ay hayaan wasaaradda aan joognaa wasaarad horumarineed maaha waa wasaarad wacyigelin iyo la xidhiidha dhaqanka iyo adeega saxaafadda wax la yidhaahdo wasaaradda aan joognaa waa wasaaradda ugu institutionska somaliland ugu waktiga dheer ama ugu caansan ama meeshii ugu horreysay ee radio af soomaaliga lagaga hadlo laga furay dadka af Soomaaliya ku hadla 1942 ilaa 42 ilaa maanta waa institutions shaqeeya gacmo badan ha soo marto magacyo badan ha soo qaadato haddaad qof istiraahdo sharciga ku qabso inta wada la soo marayo waa dugti iyo inta meel lagaga soo laabanayo iyo inta runtii qoladaasi waxayba leedahay meel loogu hagaago si kastaba ha loo wada hadle ama waraaqa ha laysu qoro ama ha loo yeedho ama qaabka laakiin qaybtan maxaa idinka qorshaysan social mediaha la yidhaahda ee dee hadda ina ku cusub horta caalamku waa la wada daalaa dhacaya laakiin caalamku tiknolojiyada ayaan ka awood weyneyn xukuumadaha laakiin halkan waxaa cad in tiknolojiyaddu ay inta badan tahay mid aanay xukuumaddu faraha ku hayn taasina waxay keenaysaa in la isla daala dhaco oo daweynada ka hadlayna dhaqankeennii meesha uu marayo laakiin waxay u baahan tahay shir weyn ka wasaarad ahaan waxaa muuqata inay naga tafweyn tahay taa social media dawlad ahaan nimanka dibadda ka yimaada shakhsiyadii iyo karaamadii iyo diintii iyo culture-kii waxaa digada ka dhigaya hunguridoon iminta qof baa daawaday like saar kan yeelka warsiyaasiyiintu wayna ka horeysaa dawlad ahaan nimanka dibadda ka yimaada way xidhaan ma la xidhi karaa waxaa cad arad ahaan waxaa muuqata inay naga tafweyn tahay taa social media saxaafadda ama wariyaasheena oo maxay tahay badankoodu marka maaragtay dalku maxay tahay xaalad ku jiro oo aan moodinayna qarannimadii maxay tahay u dhaadhacsanayn waxaa ina soo galay oo qofka fikirkiisii luminaya lacag iyo ganacsi qofku hadalki ka wasaarad ahaan ma jira wax idin dejisan oo qorshayaalo oo wax laga qabanayo الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد النبي الأمي عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسيرك
salabaan cali kore iyo wasaaraddiisa waanu hambaliyana waxaan ku soo dhaweynaynaa guddida golaha joogtada ah oo xilliyada fasaxyada intuu goluhu fasax ku maqan yahay xogolin samaysa oo ah arrinta storia sidaa la ashligeed waxaan wasiirka ugu soo dhaweynaynaa warbixin inuu naga siiso sanadkii u dambeeyey shaqadii faafinta ku soo dhawey wasiir aad baad ugu mahadsantihiin qoladina guddiga joogtada golaha guurtida noo yeedhay idinkoo fulinaya qodobada ka mida dastuurka qaranka waxaa qaadi leedihiin inaad ugu yeerataan mas-uuliyiinta xukuumadda inaad soraysi ka yeerataan shaqooyinka ay hayaan wasaaradda aan joognaa wasaarad horumarineed maaha waa wasaarad wacyigelin iyo la xidhiidha dhaqanka iyo adeega saxaafadda wax la yidhaha wasaaradda aan joognaa waa wasaaradda ugu institutionska somalilan ugu waktiga dheer ama ugu caansan ama meeshii ugu horreysay ee reeriyey af soomaaliga lagaga hadlo laga furay dadka af soomaaliga ku hadla ilaa 42 ilaa maanta waa institutions shaqeeya gacmo badan ha soo marto magacyo badan ha soo qaadato haddaad qof istiraahdo sharciga ku qabso inta wadda la soo marayo waad ogti iyo inta meel lagaaga soo laabanayo iyo inta runtii qoladaasi waxayba leedahay meel loogu hagaago si kastaba ha loo wada hadle ama waraaqa ha laysu qoro ama ha loo yeero ama qaabka laakiin qaybtan ah maxaa idinka qorshaysan social mediaha la yidhaahdo ee dee haddayna ku cusub horta caalamku waa la wada baalaa dhacaya laakiin caalamku tiknolojiyada ayaan ka awood weyneyn xukuumadaha laakiin halkan waxaa cad in tiknolojiyaddu ay inta badan tahay mid aanay xukuumaddu faraha ku hayn taasina waxay keenaysaa in la isla daara dhaco oo dowladnimada ka hadlayna dhaqankeennii meesha u maray laakiin waxay u baahan tahay shir weyn ka wasaarad ahaan waxaa muuqata inay naga tafweyn tahay taa social media dowlad ahaan nimankaa dibadda ka yimaada shakhsiyaddii iyo karaamadii iyo diintii iyo culturekii waxaa digada ka dhigaya hungurido iminta qof baa daawaday like saar kan saar kan yeelka warisgaarsiintu wayna ka horeysaa dowlad ahaan nimankaa dibadda ka yimaada way xidhaan ma la xidhi karaa waxaa cad ahaan waxaa muuqata inay naga tafweyn tahay taa social media saxaafadda ama wariyaasheena oo maxay tahay badankooda marka maaragtay dalku maxay tahay xaalad ku jiro oo aan mudiinayna qarannimada maxay tahay u dhaadhacsaneen waxaa ina soo galay oo qofka fikirkiisii luminaya lacag iyo ganacsi qofku hadalki ka wasaarad ahaan ma jira wax idin dejisan oo qorshayaalo oo wax laga qabanayo الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد النبي الأمي عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسيرك صلبان على كره وسارتيسا وأنا همبلينا وحن كسر دوينا كجدة كلها شوكتها وحين حلية فصحة أنتوا كلوا فسح كل مقنعي حوالين سمايصة أرنت ستوريا سأل أشليت waxaan wasiirka ugu soo dhaweynaa warbixin inuu naga siiso sanadkii u dambeeyey shaqadii faafinta ku soo dhaweey wasiir aad baad ugu mahadsantihiin qoladina guddiga joogtada golaha guurtida noo yeedhay idinkoo fulinaya qodobada ka mida dastuurka qaranka waxaa qaadi leedihiin inaad ugu yeerataan mas-uuliyiinta xukuumadda inaad soraysi ka yeerataan shaqooyinka ay hayaan wasaaradda aan joognaa wasaarad horumarineed maaha waa wasaarad wacyigelin iyo la xidhiidha dhaqanka iyo adeega
saxaafadda wax la yidhaahdo wasaaraddan joognaa waa wasaaradda ugu institutionska somalilan ugu waqtiga dheer